بسم الله الرحمن الرحيم وسيرada gudoomiyaha gobolka shaqanada saxaafadda iyo asxaabta kale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado magaaladii bosaso safarkayguna walajeedkayguna wuxuu ahaa safar gaaban oo shaqo oo nasiib wanaag ama nasiib xumo ku beegmay goor habeennimo ah anigoo soo maray degmooyin kale oo bariga ka kooban iyo karkaarba marka sidaa uu gudoomiyuhu idiin sheegay ama wasiirku idiin sheegay waqti yar baan joogi doonaa haddii alla yidhi waana ka xumahay inaan boosaaso oo magaalooyinka caasimadda dhaqaalaha ama magaalooyinka ugu badnaa aan saaxiibka la ahaa oo muddo badan aan kana shaqaynayay joogayna aanna filayo dadka reer boosaaso ama reer bariba inay ifilayeen oo aad ii tamaniyayeen anigoo sidii ku soo galay si yaroo degdega waa ka cudur daaranayaa insha allah waqti maxay tahay meelaysan oo baan soo sheegi doonaa waana iman doonaa waxaan noo malanayaa inay booqashadeeda u horeysa ofishalka ay noqon doonto waxay kaloo nasiib u yeelatay waa markii ugu horreysay sidii lay doortay aan dee safarba u baxo marka official ha ahaato ama in ha ahaato kayr official iyadaaba nasiib u yeelatay inaan u soo disay oo aan maxay tahay aan safarkii ugu horreeyay nasiib u yeelatay inaan tago marka dadka reer boosaaso iyo reer bariga aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ballan qaadaya haddii alla yidhi inaan si weyn ama mugle u imaado ballantaa naga dhexaysay waa ku ballansanay inaan waana igu lahaayeen runtii marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqooyinka aanu maxay tahay waxna waa qabsannay waxna waa noo dhiman yihiin waa idin salaamayaa waxaan ku faraxsanahay sidaa la sheegay raxmadda oo inaan camimtay oo boosaaso aanay wakhtiyadan heli jirinna ay heshay waa nasiibada ka badh marka waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu